su-aasha la xidhiidha dhinaca guurka waa la ii sheegayay maaragtay meelaan dhakhtarka hortiisa iyo wasaaradaha qaarkood ay boodh ka taageen oo wasaaradii hay-ad isxambaar ah labadaasoo isxambaara waxay taageen boodhan ay leeyihiin guurka ajka intaanu qofku qaangaadhin uu guursanayaa inuu xuquuqulisaan ka soo jeedo macno noocaas oo kale buu dhigan yahay boodh waxa fiican marka tallaabo la qaadayo in diinta la mariyo oo la hubsado wasaaradda awqaafta ay soo mariyaan bay oo idhaahdeen waxaa sidaanu qoraynaa shareecaddu maxay ka qabtaa zawaaj guur marka la idhaha waa diin inaad guursato arrin ijtimaaciya un maaha waa arrin diina intee aayadood baa ka hadashay intee xadiid baa ka hadlay qur-aankii baa ina faraya marka waa arrin diina nebigaaba sheego wuxuu ihi qofka ilaahay oori wanaagsan siiya diinta barhkeed buu ka saaciday falyattaqi illaaha fi shadri alaakhir diinta barhkeed buu ka saaciday waxa uu nebigu leeyahay sunnatu lambiyaa waaba sunnihii nebiga faman raqiba can sunnatii falaysa minii sunnu ku sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaad wax ka sheegaysa hay-adduna soo xambaaranine balaayo baas bay iyagu ku socdaane maxaa islaamku uu ka qabaadhe guurka la guursado intaanu qofkii qaan gaadhin eenu 15 gaadhin uu guursado muxuu yahay xagga shareecaddeena wuxuu yahay nabi maxamed baa sameeyay maxalaal baa soo xaraan nabi maxamed baa sameeyay Aisha guursaday waxa laga yaabaa ujeedada ka dambaysa inay tahay weer halkaasaba oo nabiga la duraya calayhi salaatu wasalaam sida mustashriqiintu yiraahdaan badee mustashriqiinta qaar baa waxay yiraahdaan nin shahwaaniya buu ahaayo baahidiisu hogaaminayso ilma yarna uu guursaday oo dad dumar badanna uu guursado tobaneeya markay rasuulka durayaan sallallahu alayhi wasallam taana de culimadu waxay ka qoreen kutub fara badan oo imika aynaan halkan de soo koobi karayno aadiyaad u badan ayaa laga qoray nabigu wuxuu ahaana ilaahay baa sheegay gaal ka dhageysan mayno una maqli mayno nabiga calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa iyo difaaciisuba waa inagu waajib Aisha wuxuu mehersaday iyadoo 6 jira iyadoo 9 jirana wuu la aqal galay wax dhib iyo ceeb iyo oo ka yimidna ma jirina wanaag iyo sharaf iyo gobonnimo iyo miisaan ahayn marka manhajka akhri oo kutubta shaafiiciyada akhri oo maraajicda oo dhan eeg waxay ka waramayaan inanta yar hadii la guursado islaanta hadii la guursado quraanka laftiisu uu tilmaamay ina yaroo la guursado la furay aayadda baa sheegtay والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر والله إن لم يحضن عدة بحا أيو لهاي كورمي مركاسا وحوري أوريها واوين حاسسك هويوين كواوين عادة أي كرنا ما تمرك الله فرو عدد بحو ذو صدح بلاد يعني عيد كلا جورسن كرين وامد والله إن لم يحضن inanta yar ee la furay iyadoo wali qaan gaarin oo caadadii helina la caadada ku tirsan lahayd way yar tahayba wali markaas la furay caadadiina ma helin 3 bilood iyana ha tirsato walaagta quraankii baa saas xadiidta saxiixana sidana yihiin kana board weyn buu soo dhajistay maxaa la yeelayaa markaa qoladii golayaashu waa fadhidaane tii kaniga riixa bahalka inaga riixo waxa tidhaahdaan wareeda biyeesho oo anshaxa ilaaliya iyo ummadda islaamka meelaha kaga dhicino marka talaabooyin qaadaysa hay'adan in qaxwaaba laga helayaa ka daaya oo diinteena dhaawacayaan lagu keenay rasuulkana si aan toos ahayn yaa loo durin ilaa qofka jaahilka ahi musiibadu leeyahay waxa weeye isagoo nabiga durayo ilaahay duraya ayaanu sogay waxa laga yaabaa qofkaas inaan u qastin laakiin ay jahli tahay marka intaas aynu ka oran lahayn waa sharci waxa loo guuriyaa bay yiraahdaan fuqahadu cilmiga ahkaamta وهذا خريس مراجع لك آخر للمصلحة وللحاجة هذه إنن كير أما إنن تير مصلحة يقول شرته أما باهيبة أي شرته قف كوالنا ولو جورين كرا المها يرنا ولو جورين كرا إن يربه هالكاسوس كتشوجا وحبا ما تجمع كرايو قلما ما سمين كرايو وربع عاشق ذا ينو ونكسن بعاشق ذا أن إهلك وكسوت شيء ونكسني به يون في عن هاي adduunka uu leeyahay waxa see caashaqada waxay tir warkaayarana xambaaranayee ana baxnaaninay intuu qaan gaarayee igu meheriya waligiis wuxuu leeyahay wabad fiican tahay kugu meherina iska sug inantii yareedna waa saas oo kale dad hidda wanaagsan mun arkay wuxuu leeyahay inantaa yar waa sidoo nabiga ku xushayna Abu Bakar way dhici jirtay dhaqankeenii hore oo fiirso kuwaas dhaqan kale ma garanayaan
dhaqankii Soomaalida Soomay jiri jirin inta ii guuriya ana korsanaye inan qurux badan oo qolo ka dhalatay buu arkaya faras iyo geel buu ka bixinaya suulay bii waaye inanta ana korsanaya ilaa intay nin xambaari karaysa ana korsanaya igu ogaada marka de ma aha inay garan waayaan dad mas'uuliin sheeganaya dhaqankiisa diinta marka taasina waa wax jaayisa xalaala fiican قالنا أين كده جيسنين والله أعلم